Munaasabadan oo kulmisay qorayaal Soomaaliyeed, siyaasiyiin, nabadoono, aqoon-yahano, fanaaniin iyo qaar ka mid ah wakiilo iyo guddoomiyaal ka socday jaaliyadda Soomaaliyeed ee qaaradda Yurub ayaa ujeedkeedu ahaa soo bandhigida buugaag ay qoreen qorayaal Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin iyo sidoo kale dhaqanka. Waxaa qayb ka ahaa munaasabadan u qareemida hay'adda maxalliga ah ee Yasmin Foundation oo uu leeyahay Ambassador Cali America oo qayb ka ahaa mas'uuliyiinta lagu casumay. Waxaana soo agaasintay munaasabadani oo ahayd laba qaybood hay'adda SECO oo ka dhisan dalka Jarmalka. Dhammaan dadkii ka hadlay waxa ay soo dhaweeyeen in la badiyo wax akhriska iyo qoraalka afka Soomaaliga. Guddoomiyaha hay'adda SECO Maxamed Cabdullaahi Faraxle oo halkaasi ka hadlaya dadka ka soo qayb galay u sameeyey soo dhaweyn iyo faahfaahin waxay ku saabsan tahay munaasabadan. sidaa darteed waxaan munaasabadan ku casunnay madax Soomaaliyeed intii aan heli karnay ugu maamuuska furmudnaa Ambassador Maxamed Cali America jaaliyadda Norway boos qaato oo reer Sweden ah sidoo kale qoraaga weyn Ahmed oo ka yimid Sweden Alqaasimi iyo qoraagana waddanka Jarmalka ku faano nabadoon Khalifa oo Cali oo isin Soomaaliya ka yimina u sacbiyaysan oo halkan maanta munaasabadan qaybta ugu muhiimsan oo ah qaybta bandhiga buugaagta waxa inoo soo bandhigaysa maktabadda caalamiga ah ee Scanson oo hoostigareysay dhammaan buugaagta halkan lagu soo bandhigi doono oo uu ka mid yahay buug uu qoray Danjire Maxamed Cali America oo la yiraahdo Danjire sidoo kale buug uu qoray walaalkay Maxamed Ahmed Nuur Ahmed Daawud Nuuriye sidoo kale waxa yaala buug uu qoray madaxweynihii Puntland ahaa ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas sidoo kale waxa yaala buug uu qoray buug fara badan oo qoray sheekhana faadilka Alqaasimi iyo buugaag kale oo fara badan oo ilaa iyo boqolaal gaaraya oo iyaguna halkan inoo yaala munaasabadan ama hay'adda SECO ana waxdaan nahay waxaan u qabanay waxa weeye in mashaariicda khayriga ah ee waddankeena ka jira runtii la garab istaago la taageero sidoo kale ambassadorka hay'adiisa ama foundationkiisa Yasmin halkan tabarucaad loogu ururiyo عالم مجليا وكيل محمد عبد الله دوميها سيكو يو أصحاب ثلاثة قيصر ومانتا نمت إلا يو مانتا تبع نوسو دوي وحكم حقا سيالو بوغاني عقري وليلا دنجري بوغاس مركي عام بلا بينا سودا فرع مع صنبا لكو وحكم عصري إن عقد رجال بوغا إنك سو أقل سيجيب بعد بعد يو بوك سمنتيسا لكن أنت عقل هي لكل جد إن أقول الجهاد ياسمين فاونديشن سي جهاد ويشو العقل يكوش غيش فعلا ما جيسا لو وصلنا آيات بوكس عن كسور التفكير تقانا قري أو صوب النجد إلا لو تكون بوك أيا ليفسد أو سؤال ده تقدمت يبغى يفسد إلا ما تسكله وهو ما تعلم hay'adda sida la sheegay hadda waxay shaqaynaysay ilaa 9 sano meelaha ka shaqeynayna waa aragteen wax ka badan Muqdisho Balcad Afgooye iyo Garowe oo aan gacan siino iskuul wax lagu baraa ardayda aan arkin haddaad tahay qof nool laba mid noqon inaad noqoto kaatiban qof wax qora oo dadka u faa'iideeya isagu ama inaad noqoto qof qaari ah oo isagu wax faa'iideysto wax akhriya mid kale ha noqonin labada mid dooro ama qof isagu wax qoro oo intuu cilmi iyo caqli yeesho dadkiisa wax u faa'iideynaya suuqa wax soo gelinaya noqo ama waxaad noqotaa qof isagu wax faa'iideysan oo wixii la qoro oo suuqa yaala akhrinaya maskaxdiisa cilmi gelinaya labadaa midkii kuu roon noqo innagu haddaan Soomaalinahay maxaan noqonay midaan labadaa midna ahayn suuqa ka caytama TikTok-ga ka caytama sheeko aan jirin qofkii danaynaya inuu luqadda Soomaaliga wax ku qoro ama buug qoro oo kale program ayaa la sameeyaa reading culture la dhaho oo shirkadda SECO ay hor sameeyaan oo ah in Soomaalida mujtamaca lagu dhiirigeliyo inay akhriska bartaan oo wax qoraan oo wax akhriyaan oo isku dayaan wax alifaan si luqadda Soomaaliga ay u sii jirto haddii aan la helin dad cusub oo wax akhriyo soo saara waxa way istaagaysaa luqadda qoritaankeedii jiritaankeedii uu istaagayaa marka waxa loo baahan yahay in maaragtay la dhiirigeliyo dhalinyarta inay isku dayaan inay wax qoraan
way buugaag qoraan. hay-adda SECO aad iyo aad ay uga mahadsan yihiin inay igu soo casumaan meeshaanayto oo maanta waxyaabo badan la isugu keenay caawinaadda dadkeena aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol waa garab taaganahay meel kasta wax lagu hayo qof Soomaali ah la dhisaayo aniga waa idin garab taaganahay aad maxamed waa isku xirannahay marka waa isgarabsanaa waa isu imaanaa waa wada tashanaa waxay igu imaanaysiin aniga dhalinyarada weliba waa ku faraxsanahay dhalinyaro inay halkaan joogeen waagi hore kowga u turjumo oo kula taliya mar kasta waxbarashada aad iyo aad ayay muhiim u tahay salaanka bacdi waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adda SECO oo halkan caawa iskugu kaaya keentay dhammaanteen waxaan leeyahay walaalkay maxamed aad iyo aad u mahadsantahay waxaan si gooniya ugu mahadcelinayaa walaalkay cali maxamed America oo foundationka Yasmin Foundation wax badan u soo qabtay inaan garab istaagnana waa u baahanahay haddii Ilaahay yiraahdo qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta inuu ku taageero Allah ka dhigay hal qeero hadduu hay-adda SECO iyo maxamed Cabdullaahi waxaan aad iyo aad oo xaqiiq ah oo aan mujaamalo ahayn uga mahadcelinayaa dadaalka ay wadaan ka wadaan dhul integration in lagu galaa adag tahay oo laga mid noqdo ay adag tahay oo dhulkii ku duulay Yurubta inteeda kale dhul marka sahlan aan ahayn dhul dhib badan waayo dhulkan ayadoo dhib badan tahay haddana inay la harjadayaan inay kuwa hadda imaanaya iyo kuwii yimidba u qabtaan waxyaalo faa'iido leh intii ay Soomaaliya ka geysan karaan ay ka geystaan wax kala ma ahayn gabadha yar oo sheelaasi jirka ah waxay shaqo ku weysay af Soomaali ma taqaanin waxay ahayd shaqo UNDP da bixinayso Soomaaliya laga shaqeynayo dabadeedna iyada iyo nin cadaan oo Mareykan ah ayaa imtixaankii galay ninkii cadaanka ahaa wuxuu ahaa nin gabadh Soomaaliyeed qabo gurigiisana af Soomaali looga hadlo laba caruur uu dhalay af Soomaali ku hadlaan dabadeedna ninkaas ayaa ku guulaystay shaqadii gabadhii aabaheed iyo hooyadeed iyo akhrinta iyo arrimaha la xiriira aad iyo aad bay macno badan u leedahay waxaa la dhihi jiray akhris qoris la'aanta afka hooyo waa cadowga koowaad ay Soomaaliya leedahay marka in wax la qoro waxna la akhriyo bulsho kasta iyada ay taqadum ku samaysaa iyada ay horumar ku gaadhaa sabadan oo qaybta hore ay inta ay ku ekaad waxa dib loo dhigay munaasabad kale taasoo iyaduna ay ahayd mid uu ka soo qayb galay fanaanka weyn ee Qays Ilka Case halkaasna ku madadaalinayay dadka ku dhaqan dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Fomis Cabdinaasir Yaasiin SBC Germany dadkaygu diida alla ma qosiraya bacadku buuxiyahay howla socodina gab bishinka qaninsano tolkayguna ila joog gabaahirtahay bahamala jooga